madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence ayaa ku biiray liiska musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya inay noqdaan musharaxa xisbiga ee doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka. Mike Pence ayay tartankiisa kaga hor imaan doonaan madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, isla markaana uu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkiisii. Labada nin ayaa hoggaanka sare ee dalka Mareykanka haya laga soo bilaabo bishii January ee sanadkii 2017 ilaa bilowgii sanadkii 2021. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay inuu diyaar u yahay ka qayb qaadashada doorashada musharaxa xisbiga jamhuuriga, iyadoo guulaystaha doorashada uu xisbiga jamhuuriga ku matali doono doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka. waxaana lagu wadaa in doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka ay dhacdo 5 bisha November ee sanadka soo socda ee 2024. waxaana doorashadaas ku tartami doona madaxweynaha iminka haya talada dalka Mareykanka Joe Biden oo u sharaxan xisbiga dimuqraadiga iyo musharaxa ku guulaysta doorashada tartamayaasha matalaya xisbiga jamhuuriga. guulaystaha doorashada dhici doonta bisha November ee sanadka 2024 ayaa loo dhaarin doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka markay taariikhdu ku beegan tahay 20 bisha January ee sanadka 2025. maalinimada Arbacada ayaa lagu wadaa in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence uu bilaabo ololihiisii doorashada ee tartanka musharaxa xisbiga jamhuuriga. waxaana jirta caqabado dhowr ah oo uu wajahayo oo la xiriirta dhanka doorashada. dadka falanqeeya siyaasadda dalka Mareykanka ayaa rajada doorashada Mike Pence ku tilmaamay inay ku xiran tahay siduu u qancin lahaa taageerayaasha xisbiga jamhuuriga, qaas ahaan siduu ula imaan lahaa siyaasad ay ku midoobi karaan taageerayaasha xisbiga jamhuuriga oo si weyn ugu kala qaybsan natiijada doorashadii hore ee lagaga guulaysta madaxweyne Donald Trump. waxaana xusid mudan in xiriirka ka dhaxaya labada nin ee kala ah Donald Trump iyo Mike Pence uu dhowaanahan baliitay. si guud marka loo fiiriyo taageerayaasha xisbiga jamhuuriga, gaar ahaan kuwa taageersan madaxweyne Donald Trump, ayaa in badan oo ka mid ah waxay aaminsan yihiin in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence uu dhabarka ka jabiyay madaxweyne Donald Trump, maadaama uusan ku raacin aragtidoodii ahayd in la boobay lana dhacay natiijadii doorashada madaxweynaha. waxayna taasi keenaysaa in Mike Pence uu wajaho caqabado waaweyn oo kaga imaan doona qaybo ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga, uuna sidoo kale wajahi doono tartan xooggan oo kaga imaan doona madaxweyne Donald Trump. si kastaba ahaatee, waxaa xusid mudan in doorashada madaxweynenimo ee sanadka 2024 ee dalka Mareykanka ay noqon doonto mid adag oo ka mid noqon doonta doorashooyinkan waxba la iskula harin, iyadoo la filan karo in dadka codayn doona ay ka badan doonaan intii codaysay doorashadii hore ee sanadkii 2020 sababo la xiriira kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda iyo shacabka dalka Mareykanka oo gaaray meel aad u adag. waxaana muuqata arrimaha sida gaarka ee doorashada saameynta ugu yeelan doona inay ka mid yihiin arrimaha amniga, dadka soo galootiga, dagaalka Ukraine, iyo guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, iyo weliba xiriirka sii xumaanaya ee Mareykanka iyo dowladda waddanka Shiinaha. haddaba wuxuu ku soo kordha musharaxnimada madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence iyo guud ahaanba doorashada musharaxiinta xisbiga jamhuuriga, waxaan idinkula socodsiin doonaa warbixinadeena dambe. haddii ay beedmo waxaan ila socodsiinaya anigu Maxamed Siciid Saxaaf. intaanu ku kulmayno warbixinteeda xigta waxaan kaga tegaynaa meel bad caalamka joogtaan. sidaas iyo nabadgelyo.